macallimiinta ee quraanka dhigay waxaan dhihi lahaa waxaad dhigaysaan waa Ilaahay hadalkiisa ganacsi ma dhar kama ganacsanaysaan guriyana kama ganacsanaysaan dhulna kama ganacsanaysaan wadiifadiinu waxaad dhigaysaan waa Ilaahay kalaamkiisa waa kalaamka Ilaahayna asal ahaan looguma talagelin in dariiq looga dhigto adduunyo bal ciddi qasad ka dhigata quraanka inuu rizq un ka raadiyo oo niyadiisa qasadkiisu sida noqoto jannada Ilaahay carafteeda heli maayo xadiidka saxiixa ku sugan cilmi aakhira lagu raadiyo waa cilmiga quraanka iyo sunnada ee ruuxi adduunyo qarad kale ka raadsada ama ku raadsaday jannada carafteeda heli maayo arin halis ah saddexda ruux ee maalinta qiyaamada naarta loogu horeysiin doonana waxa kamida qaari min quraanka yaqaanay oo qaari ah waxa loogu hormariyay niyada fasaadsanay niyadiisa waxay ahayd oo quraanka u bartay ama u barayay waxoogaa buu ku rabay hal ugu amaana li yuqala laka qaari wa quraanku yaqaana wa haafid sab'a alqiraa'at ku yaqaana 10 yaqaana yani in lagu amaano waxa ka sii daray inaad waxoogaa adduunyo ku raadsato ama magac ku raadsato ama manfaca adduunyo ku raadsato saas daraadeed waxa asaasa macallinka quraanka oo niyada hagaaji niyadaadu ha noqoto Ilaahay diintiisa u khidme quraankan Ilaahay dadka gaarsi ilmahan quraanka bar jahliga ka saar quraanka u adeeg niyadaadu hor saxanaato niyadu inay ka qaloocan wixii adduunyo ee Ilaahay ku siinaya caraf ah hadaad baahantoodan lahayn meel kale wax ka soo galaan wixii caraf ah iska yimaado laakiin adiga niyada ka dhigan qasad ha ka dhigan quraanku wadiifo lagu shaqeysto ma aha salada faham quraanku wadiifo adduunyo lagu raadsado ma aha waa cibaado weyn oo Ilaahay loogu dhawaado laakiin cibaadaadkaasi wixii nafci ah ku yimaada aduguna aadan qasad awliya u qastini dhimala laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum حج كلا إلى آدان جناحسنا أقصدان عبادنا أقصدان ليدين دين بايو قرآن كي إنا ضمد برتون نيدا هذا أصل كتاه إنا تكو عبادة يستو بريد القرآن كدي من وحي النعفية إلهي كاسي يعاد ارتساق ستو لما تملها لكن محا دباتا وحا إنا وظيفة كدقاتو شغو آذن نيدا هذا عبادة إيو حق إلهي منا إناهين تكلي هلستا وحيته معلمين تعاليه قرآن أيضاً أقولين ما له فرننا قرآن كي وظيفة بسكر نقول هذو وظيفة نقضينا ننكستا قلي كوا أيجي بقرآن كي أنسحي كريم بيماله فرنته والد كي مركب ما يقانو دكسي وماشان لقى فرها وأكتر ندو وأدري سهو معلم في عنه قروح بدن باتشوه علمي باللوجينا علمي مركز لوجي معلم كان والد كان ما يقانو معلم كان عرب كي مسحيه قرآن كان ما يقانا مياه تكسي وماشا كفرهم معلم كأسقون قرآن كسحين المد دكسي أفرتاي وخائن واحد لأن وحوي شقة أوسن جرانين بوك شقة قلي هول أوسن جرانين أقوان تيدا على أوسن لهين بوشاكتي عرورتي بوقتي كلميي وتشورة وحو قادنا يا شقة أوسن جرانين بو وتشورة كو قادنا يا انتهى سودو يدي مركو هرب الاسكو هايستي قرآن كي وتشورة دي سيدو الاسكو هايستي أيها هدنا هدات سيف السادس ويكسي درنتا معلمين تمركو وحان ليلا نكي قرآن كي يقانو قرآن كي تتكبر كي أن أقونينو هداد رطينات محل نقرتو هرت صوبرو وعربك صوصحو وقرآن أدك تصوبرو سو عيب وين ما صدن يدور محلين انت امتحان لقى قاضي إن لقوا حتى هل نينو عربك وسحيه حفظ وركيس اسكبدا ورق دوكسي أفريهين واحد فساد باقي لي مرك وانا ارمها وباهن الا توسيو الله صحي وباهنته ما معلمين تورن ما
لكن وحن كهلا دتك قاركود بان كهلا دتك قاركود وحن ليه ماشان ما أها يعني در لإيبنا يا ما أها فرمشي لقضا يانا ما أها ماشان هو قرآن إله هوشا يدا معلمك وحن ليه اسكتشرا معلمين توحى كلون ليه له حدين يدنا أذها جاج قرآن كدتك بري سنة تقانو وحاس صدحية المها جهدك لو باهن يهي جلي oo si daacadnimo ah ilmaha waqti u sii oo waxyaalaha mashaaqisheehe ka mashquulinaya quraanka baridiisa iska ilaali ilmihi baa lagu soo xareeyay subaxdii baa lagu keenay ilaa galabtii baad gacanta ku haysay muddada inta leeg baa lagu aaminay waqtigoodii baa lagu aaminay aduguna waxa laga yaabaa inaad fiirsanayso oo xoogaaga bisha ku soo dhacay معلك يو علمه أفرديان إنه تلفون كو مشغول السوشيال ميديا كو جيرو أو مدكلته لا chat كرينا chatting بو كو جيرا علمان هورتي سفر فرديا يا معلك يا ويا معلك كاس وخيانه هذا دون زانين أدوغاتان مسألة حكم كذا شرعا يتصير كذا شرعي معلك هو أجير أجير وحل هذا واحد شغل له ديبتي إذا شغل له ديبتينا وحو كو قادنا يا حلال وحو أقول نقطة شقدي له ديبتي سيدي له ديبتين وقبته حدو شقدي سيدي لو هشي وقبن واي وحو قادنا يا حرام بين نقونه marka waa mas'uuliyad xagga Ilaahay waxoogaga yarka ah calafka ah xalaashada ayadoo markii horeba hadal ku jiray haddana haddaad gelisaan muxuu ahaay laab gelisaan ishkaalkeeda ilaahay waqtigaaga aad umada siisay muxuu ay kula heshiisay inaad ilmaha quraanka barto waxa iskale waqtiga isaga ah oo kala wareegay oo kula heshiiyay dadkii waalidiinta caruurta ku keensaday muddadaas ay koor joogan ilmaha ay ku xariisan yihiin juhdiga ugu badan iyo dadaalka ugu badan ee aad gelin karayso baa waajib kuga inaad geliso haddaad gelin weydo markaasi wax weeye halkaasi waxba kaaga soo noqon doona aakhiri adduunba arinkaasi macallimiinay aadiyada looga xadaro macallinku sharaf buu leeyahay qiimo leeyahay laakiin waa markuu ku taagan yahay dariiq saxda ku taagan yahay waa markuu isagiina wixii garanayo wuxuu barayana uu muxuu ahay dililaahi iyo daacad ka yahay si saxana umada uu juhdiga iyo dadaalkii loo baahnaa gelinayo macallinkaasi waa macallin sharaf leh وانا ميدك إلهي أكتس اللغو أماني نصوصنا يكسو أرورتي خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن معلن مضيعة أما سقب الضيعان أما علمه ضيعة ياي كاسي وحويان معها النصوص تاسي كي شيكتي وميدك أي شيكتي حديث كالنبي قال صلى الله عليه وسلم نار تدتك وهو الرين دونه أرن كان مركا معلمين توحان ليه ضيع باكرة حنساء وقعد كينا يا ضيع باكرة مياد أركتي علمه intaasoo sano subax kasta kalahay oo waalidku muxuu ahay ay intay u cadayaan oo u labisaan oo kaxeeyaan oo meesha geeyaan oo intaasoo sano lagu soo celcelinay haddana waxa way 2 sano 3 sano kadib carabku ma saxsana quraan u xifdiis ka badaa war maxaad qabanaysaa maxaad umada waqtiga uga lumisay maxaad ilmaha waqtiga uga lumisay maxaad yahaysay waxaad qaadanaysaa maxaad ku qaadanaysaa waxa soo su'aalo oo hadda aan ku weydiinay waa su'aalaha Ilaahay hortiisa ku yaal waa su'aalaha Ilaahay hortiisa ku yaal haddaad aadamaha ka fakatana Ilaahay badan ka fakanay macallin oo dadaal oo macallimiin oo dadaala oo quraankan khayr Allah ina siiya aynu ku sharafta ku yeelanay oo aynu karaamada ku yeelanay oo sababta u tihiin oo dadaalkiisa haysaan hal la saxo oo muxuu ahaay wixii ka dhiman hal la toosiyo Ilaahay idin karaameeyo hada billahi tawfiiq